madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo wafdigiisa ayaa wada hadallo laba geesood ah la yeeshay ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed iyo golihiisa xukuumadda. labada hogaamiye ayaa muujiyay sida ay uga go'an tahay xoojinta xiriirka soo jireenka ah ee ka dhaxeeya Soomaaliya iyo Itoobiya, iyadoo mudnaan la siinayo horumarka iyo xasiloonida gobolka Geeska Afrika lana sii ambaqaadayo iskaashiga miradhalka ah ee dhinacyada kala duwan ee ka dhaxeeya labada shacab ee dariska ah. madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa xusay duruufaha xiriira ee ay wadajirka ku wajahayaan labada dal, gaar ahaan abaaraha iyo ammaanka. madaxweynaha Soomaaliya ayaa sidoo kale soo bandhigay aragtida Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ee ku saleysan Soomaaliya heshiis la ah dariskeeda, dhiirigelinaysana iskaashiga iyo waxwada shaqabsiga si looga gudbo saboolnimada iyo xasilooni darrada. dhinaca kale, ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed ayaa xaqiijiyay in Itoobiya ay diyaar u tahay xoojinta wada shaqaynta kala dhaxaysa dowladda federaalka Soomaaliya, waxa uuna si gaar ah diiradda u saaray kobaca dhaqaalaha iyo xasiloonida, isagoo adkeeyay muhiimadda dalkiisa ay u leedahay Soomaaliya degan oo leh dowlad xoogan. sidoo kale, wafdiga dowladda federaalka Soomaaliya ee madaxweynaha ku weheliyo booqashadan ayaa la yeeshay dhigooda dalka Itoobiya kulan wadareed lagu lafagurayay aayaha xiriirka labada dal iyo sidii la isaga gaashan lahaa adkeynta amniga iyo danaha ka dhaxeeya. wadahadalada labada hogaamiye ayaa yimid kadib bilo uu mugdi badan ku jiray xiriirka labada dal kadib doorashadii madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ee bishii 15. Villa Soomaaliya ayaa rumaysan in socdaalkan uu meesha ka saarayo mugdigaas, isla markaana wixii hadda ka dambeeyay xiriirka labada dal uu ku soo laaban doono mid caadi ah oo xoogan.